waxaynu doonaynaa oo aanu xisbiyada la oggol nahay in doorashada soo socota kharashkeedii u dambeeyey xukuumadda ilaahay madaxda ka yahay baa bixiyey doorasho nadiif ah oo xor ah oo xalaal ah oo qaanku ayaanu rabnaa inay noo dhacdo waxaan halka ka sii sheegayaa iminka hadda waa la joogaa hadda waa la nool yahay axsaabtayada siyaasiga ee aanu walaalaha nahay ee hadda fadhida inay durba sii kicinayaan caadifadii iyo dabaylihii carqaladaynayay nidaamka doorashada soo socota koow maxaa ka mid ah hay-adihii wadaniga ahaa ee 6 doorasho inooga soo shaqeeyey ee akademiga nabaddu ka mid tahay ee ay hay-adaha sonsof ka mid tahay in ay eedeeyeen oo ay yidhaahdeen kuma kalsoonin doorashadana kaga qaybgeli mayna haddii ay joogto annagu waxaanu leenahay doorashada komishankaa maamulaan hay-adaha maxalligeennihina way la maamulaan diyaar waxay noo soo bandhigeen iminka dadkii goobjoogayaasha ahaa ee maxalliga ahaa annaka namay weydiinin waanu oggolaatay dadka waxaanu uga ballan qaadaynaa doorashadaasi inaanan cadcadaynin nabadgelyada inaanu ciidamada qaranka ku kaalmayno sharciga doorashada komishankaa maamulaya annakuna gacanta ku qaadan mayno walaalahayan waxaanu leenahay gacanta ha ku qaadanina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantahay